بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa inaan baraarujiyo dhowr shay insha allahu tacaala. ilaahi subxaana wa tacaala soonka iyo salaada iyo acmaasha khayrka hanaga aqbalo. Tobankii beri ugu horeysay dulxija baan ku jirnaa. Maantay bay ahayd sideed yoomu tarwiya. Dadka xajka joogay maantay u dareereen halkaas Yamina. Berrina waa maalinka loo yaqaan yoomu carafa. marka su-aal layga weydiina waa ku darayaa insha allahu tacaala. nin baa su-aali kana wuxuu yidhi maxaa loo soo ceshaa sanad kastaale. waxaan ku yidhi sanad walba dad cusub baa jooga. intaan su-aasha gelin marka insha allahu taala yowma carafa waa maalin aad u fadli badan. nabiga sal ll slam uu dhahay alxaju carafa oo kama qaala waa meel xajka saldhiga dhabarka u ah ama saldhiga u ah qofkii ay dhaaftay xaju jiranin. sidoo kale nabiga sal ll slam khayr ducaai ducaa yowma carafa waxaa ducaa ugu khayr badan maalinka carafa. sidoo kale nabigu yiri sal ll slam maa qultu ana wanabiyuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir. marka waa laba jumlo kale madax bannaan maalinkaas. carafa ducada waa maalinka ugu khayr badan in la ducaysto qofku inuu khayr iyo dunya wal aakhira ilaahay warsado subxaana wa tacaala ducaysto. tawxiidkaasna uu ku celsho intuu heli karo. laakiin tawxiid soo duca maaha waxaa ku ducaysanaysaa waxay tahay ilaahay inaad warsato adduunya aakhira subxaana wa tacaala. laakiin wuxuu noqon karaa tawxiidkaas inaad maanta dhan ku celisid ama time hesho ku celisid ama aad ducada uga dhigtay iftitaax aad ku bilowdid inta wuu noqon karaa. sidoo kaleeto waa la soomaa yowma carafa dadkan xajka jooga way soomaan. nabiga sal slam wuxuu sheegay in lagu dhaafo sanadkii tegey iyo ka soo socda. sanadkii tagay iyo ka soo socda. marka nin baa dhahayay maxaa loogu soo celinayaa soonka sanadkii tagay laga dambi dhaafay maska dhaafakan. acmaasha marka waxay ku xiran tahay allah aqbala subxaana wa tacaala. sidoo kaleeto qofku si ula yimaado dhammaystirkeeda iyo nuqsaanteeda baa ajirka loo noqdaa. watii xadiis uu ahaa qof baa dukanaya waa ilaa 10% ay kala gadoomayn salaadiisii. xadiis kale oo tuu ahaa qof baa soomaya oo soonkiisa waxaan ka helaynin aan gaajiya haraad ahayn. marka acmaasha qof marba inuu acmaasha khayrkaa badsado. haddii lagu dhaafay sanadkii horena khayr kale fadli baa kasii helaysaa. haddii sanadka kaa nusqaamana ilaahay kanuu kuga kuba subxaana wa tacaala. marka qofku inuu soonkan yaraysanin soonkaas yowma carafana 2 sana hal maalin lagu dambi dhaafay wax heli kara maaha. marka ninba qof ay weydiinaya hadda qofkii qalal lagu lahaa sunnana wuu soomi karaa oo qof waajib lagu leeyahay sunna wuu dukadaa salaad aragteen qof salaad waajib taagan tahay sunna la dukadaa. soonkana waa sidoo kaleeto qof soon qalaa lagu leeyahay soon sunna wuu soomi karaa daba waqti ciriiri ahayn. laakiin waxaa kaloo bannaan inuu qof yowma carafa soon qalaa niyoodo labadii ajirna waa isku helaya insha allahu tacaala. soonkii qaladana waa ka baxaya ajirkiina wuu helaya insha allahu tacaala. hadduu rabana soon madax bannaan oo sunna soomi kara oo ilaahay subxaana wa tacaala ka rajeeyo inuu 2 sano ugu dambi dhaafo iyo ka badanba. sidaa daraaddeed qofku waa inuu khayrka ku dadaala meel kasta uu ka heli karo. khayrka inuu ku dadaalo meel kasta uu ka heli karo. camalka inta cimrigu inuu jiri doono ma naqaano. 2 sano oo hal maalin lagu dambi dhaafay mararka qaar haddii la xisaabiyo daqiiqadii hal maalin ma ku soo aadaysa. 2 sano waa meeqa maalin. marka ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan fadligaas iyo dheeraadkaas uuna siiyey. qof kastana ka faa'iidaysto. dadka soonka qalaa lagu leeyahayna soon qalana way u niyoon karaan gaarna way u soomi karaan maadaama waqti dheer waqbada ramadaanka uu ka dhiman yahay kaleeto. ducadana lagu dadaalo oo ilaahay subxaana wa tacaala hala baryo qofku sooman yahay ducada waa la aqbalaa. yowma carafana waa maalin kaleeto ayana khayrka iyo fadligeeda wata oo layidhi waa maanta ugu ducada ugu khayrka badan. marka qofku yuu ka caajisan maxaan ku ducaysanayaa afkaaga hooyo ku ducayso. haddaad ducooyinka soo aroray taqaanidoo ma'thuurka ah oo sugan oo aad si fiican u akhrin kartana ku ducayso ayagana. laakiin afkaaga la kala bax ilaahu jannada igiya ilaahu naarta iga dheere ilaahu hayaa bay u naxariiso ilaahu adduun akhriya hagaaji. haddaan in ragta ilaa 4 xasisay daba dhigataa. hadday gabdhuhu ka xanaaqaan ayaa laftu ha ducayso ilaahu ninka yuusan aka ila guursan ha dhahaan. marka labada dhinac adu ducayso ducadaada ku xirta insha allahu tacaala. wabillahi tawfiiq.